degiyo yalow hobe nabaday macaanay nabadu inay macaan tahay cid walba waa ogsoon tahay nabad waxa asaas u ah waa cadaalad marka la helaa nabad la helaa marka nabad la helana horumar ayaa la gaadhaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat daawadayaal meel walbo joogtaanba kusoo dhawaada barnaamijkeennii baro xeerka ciisaha oon ugu talagalnay in maaragtay ummaddu ay ka faa'iidaysato sidii aqoon ahaanna bulshadu ay u barato barnaamijkan waxaan maanta waa qaybtiisa labaad oo maalintii dhoweyd waxaanu iclaaninay bay ahayd xeerka ciisaha muu leeyahay maaragtay qaybtan cadaaladda saddexda tiir maaragtay booliiska maxkamadda iyo xabsiga waayo qofku marka uu dembi galo booliiska soo qabta marka uu booliisku soo qabto maxkamad ayuu keenaa maxkamadduna hadday dembi ku hesho xabsi ayaa loo taxaabaa kolka xeerka ciisuhu cadaaladda sidee buu ula jaan qaaday taas ayaynu maanta ka hadlaynaa barnaamijka waxa maaragtay marti inoogu ah oo maaragtay barnaamijkii hore ee maaragtay hordhacana maaragtay aanu wareysanayna waxa weeyaan aqoonyahan maxamuud cumar dulle maxamuud ku soo dhawow barnaamijka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu cali waad mahadsantahay aad baad nagu soo dhawahay insha allah halkiin baan ka sii wadaynaa qaybtii labaad ee aan sii iclaaminay maanta doolera okay maxamuud qaybta labaad waxay ahayd waxaanu maaragtay aan rabnay inaanu dadka u bayaamino maaragtay xeerka ciisaha iyo cadaaladda maaragtay kolka bal qaybtii labaad noo bilow bismillahi raxmaan raxiim waxa weyn xeerarka adduunka oo dhan marka la eego waxay leeyihiin tiirar ay ku fadhiyaan oo ayna ka maarsamin maadaama xeer la yidhaahdo xeerkii waa inuu wax ilaaliyaan markaa saddex shay baa ilaaliya saddexdii shay ayaan maanta markaa sharxaynaa bal yar isku dhigdhigaynaa soo koobaynaa marka dowladaha nimanka cusubna waxaa la yidhahdaa waa appareil de justice waxaa la yidhaahdo ama law and orderka waxaa la yidhaahdo ee ilaaliya bulshada dadka iyo xeerka iyo waxa la wixii waddanku leeyahay marka saddexdaas baa kala ah booliiskii oo kasoo qabanaya qofkii bulshada dhexdeeda ka khaldamay ama marka khaladku laba unbuu noqdaa inuu criminal law noqdo ama civil law inuu noqdo labadaas iyuu kala baxaa ama wax ku madaniya iyo mid laga galay dowladda oo kan criminalku dowladdu noqonaya kan kalena madani baa la yidhahdaa marka markuu qofku khalad galo booliis baa loo diraa waa appareil de justice-ku ka mid yahay booliisku ama appareilga ay ka mid tahay xukuumaddu ka mid yahay uu soo qabtaa qofka markaa kadibna wuxuu keenaa maxkamadduna markaa ha dhowto go'aan bay ka gaadhaa marka maxkamadduna labay leedahay sida caadiga ah actionkan inuu noqdo action ay qaadan karto ama ficilkay qaadanayso wuxuu noqonayaa preventive wax la yidhaahdo ama punitive ama qofkii in la ciqaabo ama suursi la siiyo oo digniin loo dhigo haddii la ciqaabo waxaa la geenayaa xabsi marka xeerka ciisuhu markaa sawirka aad aragtid ma leeyahay isaguna saddexdan
isdaba socota haa saddexduba xa bay ka bilaamayaan saad u xafidi kartid ka koowaad xidhaa la idhahdaa xidhe ka labaad xakume iyo xabsiye saddexdaas weeyaan marka kii koowaad haddaan bilaabo xidhe waa halka booliisku joogo oo kale marka dadku maadaama ay baadiye ahaayeen unbay isleeyihiin qofkii sidee booliisku muxuu noqonayaa xeerka ciisuhu muxuu noqon karaa xeer markii la dhigtay waa wax bulsha isku raacday oo la wada aaminsan yahay oo iyaga dantooda ah marka xeerkaasi booliiskiisu wuxuu noqonayaa waxa la wixii akhlaaqda ka soo horjeeda dadkaas iyo anshaxa maxaa ka mid ah ama moral code ku tilmaan ama akhlaaq dheh ama anshax dheh waa waxa la wixii bulshadaasi ay maaragtay u aragto xumaan waxaa ka mid ah raggu marka la eego waxa la odhan jiray raggu afkuu ka rimaa dumarna ibta halkaa waxaa laga arkayaa waa baarol dooni waa waxay amanin contract la yidhahdo iminka laga saxo qofka ama warqad la keenay laga saxo kale halkaa marka hore wuxuu ahaa contract wuxuu noqonayaa afka qofku hadduu hadal ka dhaco waa hadeed siduu ka dhacay waa inuu buuxiyo marka maxaa loo odhanayay moraal bay ka mid ahayd booliis ka mid ay ahayd oo hadhowta ma diidi karaynin raggu afku ka rimaa dumarna ibta waa moraal dhan waa booliis dhan oo bulshada dhex socda oo qabanaya waxa la wixii ku xadgudba laba qof oo isdhex martay contractgoodii maxaa ka mid ah beenaale markhaati mala la odhan jiray ama markhaatigiisu uu dheereeya marka hadhowto taani waa hal booliis oo iyaduna magaaladii dadkii dhex socda waxaa ka mid ah run sheeg waa la yaqaan baa la odhan jiray waa code moraal oo iyagu dadka ku dhaqmi jireen tuug baa la odhan jiray tolmale macnaheedu halkaas way adag tahay haddii si fiican loo macneeyo waxay ka dhigan tahay tolku wuxuu matalayay insurance-ka dhan assurance-ka dhan ee qofku ku jiro marka assurance-kii macnaheedu haddaad wax dhacdid haddii lagu dhaco haddii lagaa gardaran yahay haddaad gardaran tahay iyagaa ku qabanayay waa assurance-kii waa qof dhan oo magaalo gaari ku wato oo assurance aan lahayn marka muxuu khaliis u yahay waxa la wixii ku dhacay in boolis xiri karo khaladkii ku dhaco in isagoo bixin karayo oo lala bixin karaynin laakiin markuu assurance leeyahay khaladku galaba assurance-kii baa bixinaya waa qof maaragtay backup haysta ama dhabarka dee dadku haysta meel ku tiirsan marka waxaa la odhan jiray tuug tolmalaa la odhan jiray macnihi magana tahay assurance-kiibu ka baxayba ninkii tuugii waa booliisna dul socda dhex socda dadkii waxaa ka mid a misaal ahaan booliiska dadka dhex socda ilaalinaya ee si fiican u qabanaya waxaa ka mid a cadaaladu waa cayn awr baa la odhan jiray cayn waa xadhkaha awrta lagu xidho oo 3 ama 4 xadhig waxaa la dhahaa caynka xadhig kalena waxaa la idhahdaa bayda xadhig kale dabagelis xadhig kalena ugu dambeeyana waxaa la dhahaa hogaankii marka saddexdaasi waxay ahayd rarka awrka wixii hayay marka saddexdan xadhig ama 4 xadhig waa wixii bulshadan hayay qaladka ka ilaalinayay mid kastaba meel buu maraa iminka caynkoo kale wuxuu marayaa xagga xabadka ama shafkuu maraya baydu caloosha hoosteeday maraysaa dabagelisku xaggaa dambuu soo marayaa ilaa duudkan rarkii lagu hayo o dhan buu qabanaya u xajinaya hogaankuna waa maaragtay lagu wadayay marka qofku waa qof raran markuu dhulka joogo dhul xaggii joogay macnaheedu magana tahay waxaan waa mamnuuc xadhkahan meelahan marmar ee lagu sheegayay waxay ahayd waa waxyaabihii khaladka ahaa lagu diidanaa waa xeerkii baa ku wareegsan miya waa xeerkii ku wareegsan marka xeerka waa inuu u hoggaansamaan ugu dambayn xadhigan hoggaanku muxuu yahay xeerkii wuu hoggaansan yahay qofku marka maxaa la yidhi cadaaladu waa cayn awr oo kale cayn waa xadhigaas sheegay waxaa kaloo la yidhi kasoo qaad hadduu tagar galoo kale hadduu dhiig galoo kale waxaasoo dhan muxuu noqonayay wuxuu ka baxayay suuqa ama wuxuu ka baxayay bulshadii oo wuxuu ahaanaa qof maaragtay takooran iin leh ama takooran ama inta uu dhiigga laga bixin waxaa la odhan jiray qambaarkii
maxaa la idhahdaa tunka caddaa ama madaxa caddaa baa la odhan jiray oo uu ka duwanaaba dadka marka waxani waxay ahaayeen aan akhrinayay iyo intan in ka badanba waxyaabihii booliiska ahaa ee moraal ahaan ama ilaalinayay bulshada inay khalad galaan ee soo qabanayay ahayd kolka qaybtaas waa qaybtii waan gartay taa haddaan kaa dhex galo waa systemkii maaragtay qofka xakameynaya laakiin ma jiray physically shakhsi asagu intuu doono qofkii soo qabanaya ma jirin qof saa usoo qabanaya ma jirin ninka sibatolkiiba ku xidhnaa laakiin waxaa la ilaalinayay uun moraalkaasi oo waxay la eegi jiray xagga dambe ku sheegi doonaayo dheginacday baa la ilaalin jiray waxaa la idhahdaa inuu qofku dheginacday la yimaado oo macnihii khaladkii aad gashay adigiina khalad bay kugu tahay bulshadii ama reerkaagii aad ka soo jeedayna dhagaxumay ku tahay magaxuma magaxuma iyaad u diidan tahay tolka ama dadkaagiina waad u diidantooda ilaalinaysa iyo bulshadiida waan gartay sidaas bay ahaanaysa kolka taasi waa qaybtii booliska waa qaybtaas kood moraalka ku saabsan ee qofku uu maaragtay uu dhowrayo oo isaguna isdhowrayo marka tani ayaa markii haddaba magaalo lasoo galay baaba'day oo qof kastaba uu noqdo maxaan cunaa iyo maxaan yidhaahdaa iyo maxaan sheegaa oo kood moraalkii shakhsi ahaaneed baa dadkii ka burburay sidaanimo iyo haddaba booliisku dadku eryanayay hadday dadku moraalkoogu fiican yahay booliisku maba eryadeenba ama khaladba uu yaraan lahaa kolka shaqada booliiskaaba yaraan lahayd amba booliiska howlgab noqon lahaa way yaraan lahayd qofku hadduu markaa waxyaabahan ama ku dhaqmayo ama wixii diintaba ku dhaqmayo oo waxyaaba diinta laga soo qaatay un marka uu yaraan lahayd maaragtay deliyada ama khaladada la galayaa yaraan lahayd waan gartay kolka intaas waa intii booliiska kolka qaybtii maxkamadda xidhiga waxa ku xigi doona xakumihii hadda maxkamadda marka maxkamadda marka la geynayo maxkamadda definition waxa weeyaan meeshan aad tagaysid waxay og tahay qof cadaalad samaynayo inuu joogo marka geedka aad og tahay in adiga iyo aniga si xaq alla noo kala kor soorayo waad aaminaysaa dadka meesha jooga laakiin hadday dan u janjeedo marka hore maskaxdaad waxaad leedahay kolleyba isaga unbaa loo goyn doonaa marka odayadan meesha joogayay ayaa ahaa odayo lagu kalsoon yahay marka haddii aan eegno kaliteeyaday lahaayeen unbaa ku tusaya qofka kalsoonida uu ku lahaanayo labada qof markay isku yimaadiin oo la dhahdo waan ku kalsoonay odayga maadaamaad aragtid kaliteega uu leeyahay ama tayada uu leeyahay waxaa kamid a xusliye iyo taakiye labadan kelmood macnuhu ayna tahay wax kastiba mitir buu ku socdaa ma degdegayo waa qof degan oo dhan kasti ka eegaya arrinkaaga waxa lagu odhan doonaa doc iyo duleedba waa laga eegi meel hoose iyo meel saraba waa laga eegi mus iyo mis irirba waa laga soo saari baa la odhan jiray degdeg iyo duuduub na waa loo diidi oo in la dedejo yaa loo diidaya arrinkii waxaa kale oo la odhan jiray malaysasho ama malayn iyo moogis waa loo diidayaa malayn iyo in la moogo macnii halkani waa laba kelmadood oo adag oo cadaaladda Europeanka inta badan waxay leedahay cudurro ka soo hortaga oo iyaga dila laakiin xiisaa markaad aragtid halkan uu iska soo koobay macnii arrinka in la maleeyo waa laga diidan yahay oo halkan gaalada waxaa jirta in uu lawyer fiican ku la qabsado uu jirigii ama dadkii guddidii intuu hadalku kolba dhan kaga keeno arrinkii dhannaaba uu yidhaahdo ay jirigii yidhaahdin arrinkan ma furi karno marka xeer baa jira la yidhahdo duud raisonnable wax la yidhahdaa jira ama reasonable doubt waxay yidhahdeen ingiriisku macnihii marka haddii uu markaa yidhaahdin duud raisonnable baa jira marka qofkii lama xakumi karay waa adkaanaysaa shiki baa soo galay meeshii shiki baa soo galay marka halkani
xeerka ciisuhu uu ka ma jirto waa in loo fiirsado loo fadhiisto maanta soo maga dhacdaa dib u soo noqda hadalkii u fiirsada marka shakigiiba waqti loo qaadanayaaba ee lama odhanayo maadaama ninka sidaas anta dejinna ma jirto marka lama maleeyo albaabka waa la iska xidhay waa la iska xiro duud reasonable waa la soo yareeyay waxyaabo kale oo waxaa jirta lagu soo yareeyo duud reasonable waxaa jirta ama dhiib ama dhaaro unbaa lagu odhanaya halkan ma jirto ama dhiib ama arrinkii dee waan qabaadhe oo dhiib arrinkii ama dhaaro dhaar hadduu beenaale yahayna uu ku dhaarto ma dhaaran karo isaga lama dhaariyaba afartan reerkooga ah oo wiilal orod ah sita ayaa xero la keenaya xeelahoogiiba xeradaa la keenaya wiilasha iyo gabdhahaba xeradaa la gelinayaa waxay leeyihiin halkaa gala inay inii noqoto maaragtay iliga godkiini marka maxay noqonaysaa adigoo ninkan ilmaadeer la ahaa oo wiilka ay gabadhaadii wiilkaagii xeradaa ma gelin saad leedahay war arrinka hadda saa tahay waaban qabnaa unbaad leedahay marka lama ogolaba lamaba gaadhaba halkaas marka xitaa haddaadan qabinna ma isi saaraysaa iyagaa dul taallo iyaad leedahay istiqaaf inagu haddaba iyagaa dul taallaba haddaa anagu been hadday dee ninkanu runta uu sheegayo iyagay ka soo baxaysaa ay inagu qaataad oranaysa marka lama gaadhsiiyaba halkaas marka duud reasonable waxyaabahaas ayay kaga dawooween isuhu laakiin imikase waa cudurrada dila jisis amerikaanka ama maraykan ama waddankana joognaba waa cudurrada dila arrinkii dhanaamaynta khalqa la geliyo loo duud reasonable hadan lagu kala kaxayo lawyer oo qool leh qofku hadduu qabsado lacag badanna uu haysto waa arrinkii waa daboolaya marka ugu dambeyn waxaa la idhahdaa marka tani oo kale marka la keeno arrinkii waa in hadhowto go-aanu laga gaadho waqtigay doontaba ha noqotay waxaa la idhahaa xero oodan xaajo way bixin weyday baa la idhahdaa xero oodan xaajo way bixin weyday macnihii haddii mar xeradii oo geedkii la fadhiisto arrinkii la dhex galo oo la falanqeeyo lama joojinayo ilamaa go-aan laga soo gaadho waqtiga doontaba ha noqotay waan garta xero oodan xaajo way bixin weyday macnihii lama dhammayn waaye waa la dhammaynaya halka dhigan tahay taasi waxay keentay inay haddana cudur kale oo gaaladu ay leedahay ama European systemkan ama justice European ku leeyahay ay ka saarta meesha yadna waa waxay la dhahaa alabayga waxa la dhahaa inaad maqashay alabayga qaladihi ilaa Francisco oo malinaya alabayga waxa weeyaan war arrinkan aad sheegaysiin anigu waqtiga uu dhacay halkanba ma joogin baad oranaysaa waa halkee joogtay meel heblayan joogay alabi buu haystaa ama alabayga buu haystaa qofka waqtigay dhacday iyo waqtigan aad sheegaysiin maba joogin ba anigu meesha maba joogin ba halka arrinkan because meeshan ka dhacay meeshan isku mid ma marka alaabaya baa la yiraahdaa nuucaas waa alibi waddo qof kaliya way ka saaray halkan ciisu waxaan leeyahay waxa la sameeyaa maadaama wixii CCTV iyo waxyaabaha ay jirin waa in hadhowto marag iyo marqaati uu isku oran kara qofkii isagoo meeshii joogin ma joogo raadmo ama qof kale uu marqaati furaba wala wili joogay dhahdo marka wax xeradii lama oranayo de wardiniku waaba sidaa yiri arrinkan ugu khalkiciya lama oranayo waa la soo baaray marag iyo marqaati arrin dambad iyo hadhowta la soo la keeni doonaa oo marag iyo marqaati iimaan iyo marqaatiba la qaadi doonaa halkaaba la sii marin doonaa oo lagama harayo ilaa ma ugu dambeynta haddii ay ka murugto ay ka kala saari waayaan ama dhiib ama dhaara unbaa la oran taasi waa gabagabada weeyaan marka la ismari waayo markay adkaad la ismari waayo iyo noqonaysa marka cadaaladani waa cadaalad maaragtay waqtigeedii leh laakiin waxyaabo badan oo hadda dhibaato jira ay iyagu xalileen odayadan waqtigaas ay xaliyeen baad way xalileen marka taasi waxaan kaga baxaynaa maxkamadii kolka qofkii waxaan samaynaynaa waan soo qabanay oo waan soo xidhnay oo xidhayin ka soo hadalay maxkamadii baan joognaa waan ka hadalay waxaan samaynaynaa marka la xakumo siduu noqonaya xabsigu haddaba waa ka haye ta saddexaad waxa weyn xabsigii maxaa u ahaa
horta xeerka ciisaha marka la eego laba shay kuma jirto in qofkii loo dilo kama arag qof in la xidhana ma jirto meel lagu xidho sidii xabsiyadoo kale ma jirto laakiin xabsi kaloo waxaa jira furan oo kii xidhnaaba ka daran yay leeyihiin markuu qofku khalad galo khaladku doonaba ha noqdaba khaladkiibaa sii kala weynaan doona marka waxaan kusoo kobo kale saddexda xa'da waxa la idhahda kow waa xila la'aan horta khalad weyn oo hadduu galo xila la'aan maxay tahay qofkii khalad weyn oo kala galay oo kale ama dhagaar ama maaragtay waxyaaba aan bulshada ku xun oo aan aad u xun waxaa la samaynayaa guurkiiba ku adkaanaya waxaa la waa ninkii reebele la xukumay waa ninkii marka waxa ku dhacaya inay ku yaraato xilihii uu guursan lahaa gabadhii uu guursan lahaa maadaama waxa ka xumaaday sumcaddii xoola la'aan baa ku dhacda oo inta badan xeerka uu jebiyey ama khaladkaa weyn uu galay hadda kuwa yaroo nin la isdiray iyo rag iyo iyo geel la kala qaatay maana marka waa kariimada waaweyn les majestiga waaweyn oo kale waxaan ka hadlayo marka kaasoo kale waxa ku dhacay inta badan uu xayrooda maadaama habaarkaa daraaddeed xoola la'aan baa ku dhacda xakun la'aanna way ku dhacdaayoo meel geed ma tego oo kama qayb galo odayadii waxna lama weydiiyo warkiisana lama qaato marka maxaa dhacaya dee bulshadii waxaad ku tahay un qof iska dhex joogo uma tirsanid xabsigaba way ka adagtee way ka adag tahay waxaa kaloo jirta saddex kaloo aan kusoo koobay baa jirta oo isaga un ku saabsan waa maal la'aan baa la yidhi xoole ma hayo murti la'aan murti hadduu sheegana lama qaato cidna wax kama qorayso waxba kama qorayso moora la'aan wax maaragtay xoole iyo maaragtay ugu dhaqmayo ama business iyo waxa uu samayn karay ama baaci mushtarina ma jirto habaarkaayo waxaba ku dhaca markhaati ma galo marag ma galo col iyo wax looma dirsado warkan sahanka marka la yidhahdo ee la sahan tegayo ee reerka la rarayo ee meel roob loo raadinayo isaga looma diro marka wuxuu noqonayaa qofkiisi qof bulshadii iska dhex jooga uunan aan ka baxsan qolfoofkiisii unbaa jooga ee shaqadii ama functionkii uu lahaa ee la isticmaali lahaa ma jirto kaasi waa ka inta ugu badani wuxuu ku dhacaa markay sidaa ku dhacdo inuu magaalo kusoo ordo markaa magaaluu ku dhuuntaa magaaluu markaa ku bedeshtaa haddaba wuxuu ku bedelanayaa identitygiisii huwiyadiisii ama shakhsiyad kalu qaataa miyigiisi baa looga yaqaanay laakiin magaaladii imika magaaladii xagga kaluu tegaya wuxuu noqon karaaba inuu saddexla noqdo inuu business furtaaba dhici karta inuu meel kale leeyahay dhici karto marka waa bedel markaas kolka waa ninkii miyigi maaragtay criminalka ku ah magaalo markuu soo galo nolol kalu uu bedelmaa shakhsiyad ahaan buu isbedelaa waan garan nolol kalu bilaaba wasaas saabay kuwani marka kuma noolaan kara meeshii uu dembiga ka galay marka xabsigii la xidhayay ee dhammaanayay ma jirtay xabsigan waa xabsi furan oo meel kastaba laga garanayo because qof kastaba marka loo dhisayo ama meel uu tago ama meelba reer uu la kulmo waa la ogaanayaa isla markaaba inuu ahaa nin saas oo kale marka waa inuu ka baxsado maaragta zoonka oo dhan uu magaalo galaa meel aan laga garanayn uu tago oo ha uu ka taga even haddii marka dambe lasoo ogaado oo la ogaado waxay noqonaysaa bar uu weligiiba leeyahay qofku marka xabsigan waa xabsi aan ka hadhaynba xabsi termigiisu dhammaanaya maaha waa xabsi adag weeye waa xabsi adag marka waxyaabahan waxay u sameeyeen waxayn si xeerkii loo ilaaliyo marka intaasi waa kii criminalkii weynaa laakiin kuwan maaragtay dembiyada yaryar gala ayaga see loo xakumaa iyaga sida loo xukuma waxa weeye markaan haddaba garta la qaadayo ay nin ku dhacdo muhiimka waxa ugu horeeya la sameeyo waxa weeye kani garta helay lama sii buunbuuniyo ka garta laga helay
ayaa la weydiiyaa markaas ayayna hebelo way kugu dhacdaa la yidhahdaa intaas oo tolkaaya oo kabaala aan ka eexanayn oo ku eexanayn arrinkaas oo irbad caaradeed ku baadhay wax badan baa lagu akhriyaa ninkan kabaala ma u leedahay haa waan u leeyahay buu odhanaya way kugu dhacdaa la odhanaya waan qaatay markuu yidhaahdo ayaa haddaba la odhan intaana waxa kaa cunay geedka ama tolkiibaa kaa cunaa la odhanaya ee intaa u bixi kadib kiibaa loo jeesanayaa maaragtay garta helay isagiibaa dhegaha laga garaacay oo la odhanayaa san weeyaan maanta unbaad heshay berri tole heli doonaa marka isagiina waa la leexleefinayaa kii helay kanina waa loo ducaynayaa marka waa win-win situation kani wixii baa la leexdinaya le maanta heshay baa berri tole maaragtay ha iska dhigin maaragtay nin khatar oo maaragtay ninkan ka helay oo maaragtay dhulka ha meermeerin baa laleeyahay oo kani hoos baa loo dhigayaa kanna waa loo ducaynaya waxa laleeyahay waa naaqbashay ilaahay ha ku aqbalo wuxuu ku dhano marka wasaanimo marka waxay noqonaysaa win-win situation si ha dhowto berri tole markay imato kani maanta badiyey madaxa wuxuu ku haysan doonaa berri tole waxa dhici karta inaad khalad gashid oo lagaa badiyo ama ay gari kugu dhacdo marka hoos buu isku dhigayaa kana ducadii buu qaadanaya wasaanimo dadkii la iskugu soo dhaweynaya waa la isku soo dhawaaka waa maadaama uunan galin dambi weyn siduu bulshada ugu dhex noolaado ugu noolaa waa la isku soo dhaweyn marka xeerku waxa weeyaan waa win-win situation weeyaan ama weynoo ninba inuu loser noqonin oona maaragtay uuna u noqonin nin laga badiyo ama khasaaray inuuna noqonin marxaba qaybtani waa qaybtii dhinaca cadaaladda weeyaan maanta waxaynu ka hadalnay qaybta dambe waxa weeyaan dhinaca informationka amba warisgaarsiinta waxaynu ka hadli doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo dulle maxaad odhanaysaa qaybta dambe oo ah qaybtii saddexaad hadduu ilaahay yidhaahdo oon rabno dadku inay ka faa'iidaystaan aqoonta iyo maad aragtay wacyigelintaas kolkaa qaybtaa saddexaad maxaad odhanaysaa adiga ood rabtaa in ummadda aad cali waxaan samaynaa sidii su-aalumaan u dhigaynaa sidii tii hore baan su-aal u dhignay marka warka adduunka maanta waad aragnay waxay noqotay in uu noqdo nin kastaba uu sheegayo un war oo ilaa imika ay noqotay dee fake news la odhanaya wixii la diidan yahayba fake news un lagu tilmaamayo waan gartay marka waxaan eegi doonaa cayn su-aaleed haddaan u dhigno warkuna waa waxyaabaha kalaatee ee lagu helo xaqiiqada oo war la helaa tala la helaa baa la yidhahdaa marka warku hadduu kaa xumaado ama kaa khaldamo waxa xumaada go'aanka warku hadduu fiican yaad heshayna go'aankaad qaadanaysid baa fiicnaada marka labadaabaa isku xidhan waan gartay marka isuhu warkiisu sidee baa loo sharxayay sidee buu xeerka ugu xidhnaa warku warse muxuu ahaa suursiyada laga soo qaato IFB-da Reuters baa jira soo adduunka 5 meelood baa jirto la ictimaado oo laga soo qaato wararka heesa warkiisa xaguu ka soo qaadan jiray ka dhexdiisa iyo ka dibaddaba sidee buu se u taxliilin jiray ama uu iskaga baari jiray uu hufi jiray ama iskaga sheegi jiray warka wixii fake news mechanismigu isticmaali jiray maxay ahayd warse maxaa loo yaqaanay su'aalaha noocayaan kaga jawaabi doonaa insha Allah daawadayaal qaybta saddexaad hadduu ilaahay yidhaahdo barnaamijkeena baro xeerka ciisaha oon ugu talagalnay bulshadu inay ka faa'iidaysato maadaama oo adduunka kaleba maad aragtay sida CNN-ta BBC-da wargeysyada adduunku ay malaayiin ku bixiyaan say dhaqamada adduunka ay u soo bartaan ilaa qaaradda Afrika ilaa Asia ay tagaan ay soo baaraan ummadaha halkaa ku degan xeerarkooga dhaqankooga malaayiin ku bixiyaan annaguna maanta waxaan ugu talagalnay barnaamijkan in maaragtay laga faa'iidaysto oo maaragtay aqoon kororsi la eego oo la barto maaragtay xeerka ciisuhu muxuu ka qabaa maaragtay casrigan hadda maaragtay xeerarka jira weeyaan waxaan ugu talagalnay barnaamijkan waa aqoon kororsi qof kasta oo raba inuu wax kororsana maaragtay aan ugu talagalnay inuu wax ka kororsado barnaamijkii caawa intaas ayaynu kusoo gabagabeynaynaa qaybteennii labaad hadduu alla yidhaahdo waxaa barnaamijka igala qayb galaya maxamuud cumar dulle oo maaragtay isagu
xeerka aad ugu takhasusay intaynu ku kulmi doono qaybta saddexaad hadduu alla yidhaahdo khamiista dambe waxaa nigaga tegayaa waa aniga cali casoowe ah waxaan nigaga tegi doonaa saas iyo nabadgelyo